shoodhan iyo dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dastuurkuna sidiisuba waa isu geegeynta afkaaraha kala duwan ee dadka Soomaaliyeed ay qabaan ka turjumida danahooda iyo tolida la tolayo weel weyn oo qof waliba uu dantiisa ka dhaxarkaya dadka gobolka Banaadirna dadka kuma jiraan waa dadka dawladnimada martiya waa dadka dawladdu ay ku dul nooleed ee ay ka dhiman laadahay muddadii dambeysay oo dhan waanu ogsoonahay oo ka dharagsannahay in hadday noqoto cashuuro iyo hadday noqoto culaysba guud ahaan deegaankan unbuu ku dhacaa hadda ayay dawladdu dadaal ku jirtaa in arrimihii cashuuraadka iyo maamulka la isku xidho si dakhliga dalku uu kaco dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Umar Filish oo isna ka hadlay kulanka ay wada qaateen wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in shacabka magaalada Muqdisho ay qabaan tabashooyin badan oo ku aadan dastuurka dalka loona baahan yahay in wax laga qabto bulshada gobolka Banaadir tirakoob dhab ah lama hayo laakiin lagu sheegay inay 3 milyan yihiin waxaan idin sheegayaa inayan qanaaco dhammaystiran qabin Soomaalida dhan hadii la weydiiyo adigu ma qanacsan tahay qanaaco ma qabaan oo cid qanaaco qabtaaba iska yar laakiin haddana tabasho la taaban karo oo reer Banaadir jirta ma filayo tabashadaas jirtaa inay xilligan hadda adoosha gacanta ku haysiin inay dhaafi doonto insha Allah taala waxaan doonaynaa tabashadoodaas in loo siiyo fursad loo siiyo inay soo bandhigaan wixii guddiga halkan fadhiya iyo hay'adaha la midka ah hawsha gacanta ku haya ee wasaaradduba wixii gar ah inay tixgelin siiyaan codkaasina waxa ugu dambeeyay warkii wariyaheena Farxaan Maxamed Xuseen sida wariyaheena Axmed Cabdilqaadir Yaro oo magaalada Baydhabo kaga soo waramay madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa Baydhabo kulamo waxa uu kula qaatay wafdi ka socday wadanka Finland sidoo kale midowga Yurubna waxa ay Baydhabo ka fureen shir looga hadlayay kobcinta dhaqaalaha Koonfur Galbeed shirkan oo looga hadlayay kobcinta dhaqaalaha ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxaana maalgelinaysa midowga Yurub waa mashruuc loogu talagalay 4 sano oo horumarin ah kuna kooban gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana daahfurkan ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ururada bulshada rayidka iyo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Ahmed Madoobe Nuunow oo ah wasiirka qorsheynta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedada shirkan ahdaafta laga leeyahay sida ku cad Island Inclusive Local Economics Development waxa waaye in sidii hore ee Soomaaliya loo siin jiray deeqda si ka duwan in loo maamulo erayada xagga noo qoran inclusive in loo dhan yahay waay oo qolo kaliya aysan ku ekayn haddana local uu yahay deegaanada hoose loogu talagalay uuna yahay barnaamij oo kobcinta dhaqaalaha uusan ahayn barnaamij oo humanitarian ah loogu talagalay kobcinta dhaqaalaha baahiyada la daboolayna ay ahaadaan baahiye oo ka yimid oo dhab ah oona ka yimid dadka deegaanada ay degan yihiin marka annaga ka Southeast ahaan focuska waa laba shabeelle ama shabeellada hoose ayaa barnaamijkan wixii noogu soo aado ayaa lagu fulinayaa marka ahdaafta laga leeyahay waa maxay ahdaafta laga leeyahay waxa waaye barnaamijku inuu ka qayb qaato xasiloonida guud ee wadanka stability dhinaca kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa kulan la qaatay wafdi ka socday dalka Finland kana socday safaaradooda waxa ay ka wada hadleen sidii Koonfur Galbeed Soomaaliya Finland ay uga taageeri lahayd arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay dhismaha golaha deegaanka iyo sidoo kale waxbarashada caafimaadka wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar Cabdi ayaa ka warbixiyay kulankii dhex maray madaxweyne Laftagareen iyo wafdigii ka socday
safaaradda Finland. waxay kulan eed muhiim ah oo meelahay ku warqaadayaan barnaamijyo ku fulayaan hay'adda FCA ee wadanka Finland oo taageeray iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale safaaradda xubnahaas oo meelahay booqashada ka koobanaytay dabagal barnaamijyadii hore intaan ku fulayaan oo kumid ah koonfur galbeed iyo kumulayaan dhismaha golaha deegaanka iyo ku taageerayaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo xaaladihii meelin marahay iyo sidii lan kordhi lahay barnaamijyadaas saas oo kale mayba ku taageeraan dhinaca waxbarashada oo eed muhiim ah ayana meelahay hay'adda FCA iyo meelahay mas'uulka wadanka Finland iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxbarashadaas oo muddooyin ilaa dhowr sano ilaa 2 sano ku socday oo in taageerada dhinaca waxbarashada kordhiyaan eedna muhiim ah meelahay madaxweynaha eedan tixgeli misan ku codsaday dhinaca waxbarashada koonfur galbeed in muhiimad gaar ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wada dadaal ku aadan sidii mashaariic horumarineed uu kaga fulin lahaa inta badi deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ayadoo ahayd maalin ka hor Baydhabo uu ka furmay shir kaas oo isugu jiray dhaqaale aruurin iyo horumarinta degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Axmed Cabdulqaadir Yarow, Axmed Saadaq, KNN, Baydhabo. wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya waxa ay ka hadashay rabab duufaano wata oo laga cabsi qabo in ay ka da'aan dalka gobolada qaar. qoraalka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in la saadaalinayo in rababkaasi da'aan saacadaha soo socda loona baahan yahay in la muujiyo feejignaan dheeri ah. sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in heegan buuxa la geliyay dhammaan laamaha gurmadka iyo ka jawaabidda xaaladaha degdega ah. qoraalka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in 24 saac la soo dhaafay tuulooyin gaaraya 25 uu saameeyay fatahaadda webiga Shabeelle kuwaas oo dhammaan hoostaga magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay meel mariyeen hindisa sharciyeedka wax ka beddelka sharciga iibka iyo sidoo kale qandaraasyada qaranka. warkani waxaa soo koobaya Maxamed Cali Maxamed oo warka habeen soo saaray. xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan maanta ay ku yeesheen xarunta magaalada Muqdisho waxay ku ansixiyeen sharciyeed muhiim ah oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. kulankan oo ahaa kii 20aad ee kalfadhiga 6aad ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Senator Abshir Maxamed Axmed Buqaari, gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga warshadaha isgaarsiinta iyo dalxiiska ee aqalka sare Senator Cabdi Axmed Dhuxulow ayaa golaha hortooda ka akhriyay isla markaasna akhrinta saddexaad ku marsiyay sharciyeedka wax ka beddelka sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka. ugu dambeyn xildhibaanada aqalka sare ayaa intaas kadib waxay ansixiyeen oo markii ay akhrin saddexaad marsiyeen kadib ay u codeeyeen sharcigaasi 30 senatar ayaana u codeeyay oo ogolaado sharcigaas inuu ansax yahay. wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa ansixinta kadib la hadlay golaha. suuliyiin ka soo baxdeen unanimously ku ansixiseen anigu simple waxa la ballan qaadayaa sharcigaasi uu yahay iyadoo ansixiseen inaan u fulino wixii warcelin la nooga baahdana aan idinku soo celino ayaan ballan idin qaadaynaa. aad baad u mahadsantihiin waa idinka mahadcelinayaa runtii wax kale aan ku daraya ma jirto sida aad u ansixiseen buu noqonayaa. golahan ku celinaynaa dabeetana madaxweynaha Sheekh Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sharcigan oo ay meel mariyeen golaha aqalka sare ayaa hore waxa uu soo ansixiyay golaha shacabka madaxweyne Farmaajo ayuuna haatan sharcigan sugayaa inuu saxiixo ugu dambeyn lagu soo saaro faafinta rasmiga ee dawladda. khilaaf ayaa ka dhashay xilka qaadis lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee degmada Buulaburdi ee gobolka Hiiraan kaasina ama khilaafkaasi waxa uu weli ka taagan yahay magaaladaasi dibadbaxyana maanta ay halkaasi ka dhaceen. wararka la xiriira khilaafkaasi iyo dibadbaxyada ka dhashay waxaa soo koobaya Yunis Duraan Cali. wararka ka imaanaya magaalada Buulaburdi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in maanta magaaladaasi ay ka dhaceen barnaamijyo rabshado wato looga soo horjeeday maamulka Hiirshabeelle. barnaamijkan oo ay dhigayeen dadka deegaanka ayaa waxay uga soo horjeedeen gudoomiye cusub ay u soo magacawday Hiirshabeelle Buulaburdi kadib markii gudoomiyihii hore ee degmada uu ka hor yimid xilka qaadis ay ku sameysay wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaas. dibadbaxyaasha ayaa xiray dhammaan isu socodka gaadiidka dadweynaha ganacsiga ee degmadaasi iyagoo wadooyinka dhexmara Buulaburdi ku jiray iyo biro. sidoo kale dadka dibadbaxa dhigayay ayaa waxaa isku dayay inay kala iriyaan ciidamada Amisom gaar ahaan kuwa Jabuuti oo ku sugan Buulaburdi waxaana rasaas ay ku rideen dadkaasi dhigayay barnaamijka keentay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh.
inta la xaqiijiyey hal qof ayaa dhintay mid kalena waa uu dhaawacmay waxaana ay ka mid ahaayeen dadkani kuwii dhigayay banaanbaxa cabdikariin dhiciso weheliya oo ka mid ah dhaqanka buulaberde ee gobolka hiiraan ayaa sidan raadiyo kulmiya u sheegay banaanbaxa buulaburde ka dhacay waa jira waxaa banaanbaxay dadka reer buulaburde dhammaantood waxyaabaha ay dhibaato ay tabanayaan ayna ka ballanbaxeen hadda welina waa jiraa oo jidadku waa xiran yihiin waxay ka dabadbaxayaan niman la yidhaha hirshabelle ayaa dhibaato ku samaysay waxay degmada usoo magacaabeen 3 gudoomiye 3 gudoomiye yidhaheen adigu wuxuu ku kala baxa kadib waxaa dhacay dadweynihi inay dantooda garteen oo ayagu inaan la isku dirin ay fahmeen hirshabellena hal mowqif ay ka qaateen 3 warqadood ay soo direen ay maaragtay ay diideen buulaburde banaanbaxaana si nabada uga dhacay jidadku waa xiran yihiin magaalada isu socod ma laha shacabku waa kacsan yihiin xoogaa yaroo dhibaatana way ka dhacday oo waan isleenahay hadde hirshabelle idinka timid iyo nafteedu naba nabad ilaalin oo la yidhaha jabuuti la yidhaha ayaa dad shacab ah oo meel jooga xabada ku furay hadde waxna waa ku dhinteen waxna waa ku dhaawacmeen hal qof oo dhimasho iyo hal dhaawac waay waa jirtaa xalay ilaa 3 oday ay xireen amarkaana waxaa bixiyey wasiirka arrimaha gudaha ee hirshabelle maalmihii ugu dambeeyey magaalada buulaberde waxaa ka taagnaa muran la xiriira dhanka maamulka waxaana dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle ay xilka qaadis ku samaysay gudoomiyihii hore ee degmada cabdicasiis duurow xaalad kacsan ayaa maanta laga dareemayaa magaalada buulaberde madaxda hirshabellena weli kama hadal banaanbaxan ka dhashay khasaaraha ee ka dhacay maanta magaalada buulaberde weli waxaad la socotaan warka habeen ee idaacadda kulmiya qodobka ugu dambeeya saaxiib haddii aan soo qabto madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si kulul waxa uu kaga jawaabay hadalka soo yeeray dhigiisa dalka Faransiiska. Donald Trump waxa uu Faransiiska madaxweynaha xilligan ka taliya Emmanuel Macron ku eedeeyay hadalkii ka soo yeeray ee ahaa in hadafkii gaashaanbuurta NATO uu dhintay. Trump oo xilligan ku sugan magaalada London halkaasi uu kaga qayb galayo 70 sanada guurada ka soo wareegatay markii hogaamiyaasha ay sameeyeen ama markii la sameeyay gaashaanbuurta NATO war-saxaafadeed uu Trump ku sheegay in NATO ay qabatay shaqo badan ayaa qayb ka mid ah waxaa lagu yiri hadafkii loo aasaasay waa lagu guuleystay hadalka Macron uu yahay mid aflagaada waxaa sidoo kale uu sheegay in ay muuqato in Faransiiska uu ka baxayo NATO balse sababta ma uusan sharxin